بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa maanta inaan falanqeyn ku sameeyo wixii shalay nooga qabsoomay xaafadda saxaraha waaxda barwaaqo. dhamaanteeda waa ka wada dhageysanahay qaabka u soo dhaweynay maamulka cusub ee degmada Gubta kuwaasi oo aan ku soo dhaweynay garoonka Shokaale wuxuu ku yaalaa garoonkan isa la socono saxaraha wadadan oo xoolo qalka ay ku yaala halkaas ayaan ku soo dhaweynay halkaas shalay waxay marti gelisay wax yar idaan ugu gudgelin hadii video ku soo gaar fadlan page ka si oo u kala kaco ama oo noogu bato xaalo isarta like waa kaaga mahad celinayna sidoo kalena inaad yani follow soo dhawaad follow oo hina ma santahay shalay saxaraha ama waaxda barwaaqo xaafad saxaraha waxay marti gelisay wufuud aad u fara badan ama dhaho inta badan maamulka degmada Gubta waxaana halkaasi shalay ka dhacday xaflad si heesa loo soo agaasimay ay iska kaashadeen waaxda barwaaqo iyo dhalinyarada isku xiran ee halkaas shalay ku qabteen soo dhaweyn saawina shalay waxa meesha yimid oo lagu marti qaaday gudoomiyaha degmada Gubta nin lagu magacaabo Axmed Xaashi Culus waxaan la socday dhammaan inta isaga la shaqeynayay hadii aalaayeen arrimaha dhalinyarada bulshada la dhaho taliyaha saldhigga degmada Gubta gabar magacaabo Najmo oo taliyaha ah iyo waxa kala socday gudoomiyaha waaxda barwaaqo Maxamed Qaarwire waxa kala meesha yimid gudoomiyaha arrimaha bulshada sidoo kale waxa goobta yimid gudoomiyaha dhalinyarada waaxda barwaaqo dhamaantood meesha imaadeen sidoo kale waxa ka soo qayb galay odayaasha deegaanka ganacsatada dhalinyarada kulankaasi wuxuu ahaa kulan aan loo kala harno ahaa oo runtii aad loo soo agaasimay nasiib wanaag wuxuu ku qabsoomay sidii loogu talagalay qorshahan oo ahaa ay ku qabsoomay laakiin waxa jiro waxyaabo fara badan oo la rabo in wax la iska weydiiyo degmada Gubta sida hadda muuqato ama ku cad dadkuna way og yihiin waxa ka jira laba waaxood taasoo ah waaxda Ciise Cabdi iyo waaxda barwaaqo saxaradan ay anagu in badan waxaan ku soo shaqeynaynay dhalinyaradan hay in saxara ay wax noqoto ilaa iyo dhan kastaan la wadaagnay in saxara ay noqoto waax madax banaan laakiin waxaan moodaa shalay wixii dhacay xogaa yiriis in oo ku jiro qaad ku jiray maadaama aynagu aan u halgameynay oo ordaynay inay xaafadeen noqoto waax ka madax banaan waaxda barwaaqo iyo saxarna diris ay noqdaan isticmaalno marka waaxda saxaraha waxaa moodaa meesha shalay xogaa inaan soo muujin oo ay sheegeen sidii aan rabnay aysan noogu qabsoomin marka sidii aan ugu talagalnay horta oo u dhacay barnaamijka laakiin ka saxar ahaan xogaa shalay title-kii aan joognay iyo meeshii aanu filaynay xogaa hoos u dhacnay oo waxa isticmaalnay xaafad anagoo wax xamigeenu yahay marka waxa jirta marka dadku ay wax sugayaan oo kale ariya badan oo la isticmaalo oo ay bixinaha jiraan tusaale hadda markii huruur la magacaabayo degmada la dhigay in badan degmadaas waxay ahayd degmo sugta la dhahay degmo sugtada huruur la dhahay Daarusalaam waxa la dhahay degmo sugtada Daarusalaam laakiin waxa hamar soo booday oo ayadoo waxba iyo la iska soo qaadin hamar banaags keenay garas baalay oo ayadoo raba in daynile lagu garaafeeyo oo aan nasiib wanaag rag iyo barashkaasi watay way u suurta gasho waa ku garaafeysteen waayahay marka saxaraha maxaa diiday in loo isticmaalo ereyga waax sugtada maadaama aan degmo aan sugaynin oo degmo qorshahan u ahayn inaan sugno waax aan sugno وهذا واحد وقولوا إن دوام يقوم مجعبه يعني أديارسن بحد يقربها أديارسن وحاول سحرها واحد مركا سحرها هي مال وقولوا ورنتي شيء إنه صح إنه نقطة واح إنه نقطة ماش وقولوا هيد لكن أنا جاي استعماله وين شري حتى أنا نبار كوسا قرنا دقم واحد سبتة سحرها عافينات لما هن برنامج دنبا يا لاسكو رسدونا runtii waxa halkan mahad iyo bogaadin iyo sharaf aan u jeedinayaa oo sheegeen shalay kulankaasi inuu qabsoomo aad ugu garab lahaa dhalinyarada xaafadda saxaraha oo runtii waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo dhammaan dhalinyarada jaalida ah ee ku sugan dibadda runtii kuwaasi oo aad garab noogu siiyay barnaamijkan noo qabsoomo nasiib wanaag sidii aan u talagalno noogu qabsoomay waxaana ogaatiin wixii aad noogu talagasheen ee noo soo dhigteen sidii loogu talagalay anagana shaqadii ugu qabanay oo akademiyada dharkii iyo qalabkii wixii u soo iibinay martidiina waa ku sharafnay halkaasi marka taas idii horta way kor ogaada laakiin waxa leeyahay saxaraha waxay u qalmataa waax waxaan ka fariin u dirayaa gudoomiyaha waaxda barwaaqo Maxamed Qaarwire
gudoomiyaha degmada Gubta Axmed Xaashi Culusow Bacol waxa la yeenay habow saxaraha hadda way diyaarsan tahay waa meel diyaarsan waa meel u diyaarsan in degmada qato wax noqoto ma waxaas nagala shaqeeya waxaas noo soo magacaaba waxaas iyo dhalinyarada xaafadda kala tashta oo sheegay la sheegaysta dhalinyarada xaafadda ayaga hadda processka wado ayaga qorshaha wado ma barnaamijkaas nagala shaqeeya waxaan u diyaarsanaynaa wax noqono mid uma dhici doonto hadda idin sheegaa in aad soo idinka keenteen oo soo magacaawdeen inay saxaro ay ka noqdaan maamul ka noqdaan ma dhici doonto dhalinyaradu isku xiran yihiin way diyaarsan yihiin qalab ahaan isticmaal ahaan iyo wax kasta oo diyaarsan yihiin hadhow marka inaad nin uu kor keentaan oo ninkaasi aad ka dhigtaan wax saxaro u dhiibtaan ma dhici doonto nina anaga raalli ka ahayn ganacsatada raalli ka ahayn odayaasheen raalli ka ahayn ma loo dhiibi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.